مبارك موسى إسماعيل oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xarunta golaha wakiilada Soomaaliland kula hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda sixir barar ee ka taagan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo saameysay bulshada dayarta iyadoo sidoo kale ay kaceen sixir bararkii dhinaca shidaalku waxa uu fariin u diray xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ganacsatada ugu baaqay in ummadda ka jabiyaan sixir bararkani ugu dambeyn xildhibaan Mubaarak Muuse Ismaaciil waxa uu fariin adag la wadaagaya ganacsatada reer Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay u naxariistaan dadkooda dayarta waa tahay daawadayaal ku soo dhawaada waraysi kooban oo halka kula yeelan doono xildhibaan Mubaarak Muuse Ismaaciil oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaanku waxa uu ka hadli doonaa sixir bararka ka taagan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo saameyn ku yeelatay dadkii dayarta ahaa ee reer Soomaaliland iyadoo xaq shidaal iyo xagga kale macasho Dubai kor u kaceen maalmihii ugu dambeeyay magaalooyinka waaweyn ee laga dareemayay mudane xildhibaan ku soo dhawaad marka hore telefishinka qaranka Soomaaliland waxa tiin mudanayaasha la soo doortay waxa ogtahay inay ka jirto dalka xaalad sixir barar oo kor u kacday bal arinta idinku maadaama dadka bulshada soo dooratay arinta maxaad ka leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa sida ogsoonahay wadanka waxa ka jirta abaaro aad iyo aad u baahsan waxaana muhiim ah in wixii dadku degdegan laga wada hadlo wax laga qabto runtii waxa weeyaan wadankan iyadoo abaaruhu soo jiraan ayaa haddana sicir bararka cirka ku sharay dadka masaakiinta ee danyarta ah ee maalin walba soo joogaan awoodi raashin iibsadaan inay biyo iibsadaan xoolihii baa biyo loo laayay dadkii baa biyo waxyaalaha aad iyo aad la yaab kale waxa weeyaan haddana shidaalkii ayaa sicirkii maalin walba uu sii kordhaya waxaan in la xadeeyo ay dawladdu dee si uu shaqadan ka qabato inay sicir bararka marka hore dejiso weeyaan runtii wasaaradahan hawshan shaqo ku leh ee guddida fulinta inay arrintan ka shaqeeyaan bay ahayd abaaraha way sii baahsanaanayaan way sii badanayaan hadduu raashinku sii kordho xaggaa laga keenayaa lacag iyo dhaqaale loogu iibiyo biyo iyo raashin haddii sicirku maalin walba sii kordho booyadaha shidaalka wadiga arkay biyaha dhaaminaya shidaalkii baana awoodi karayn war dadka tagaasida danyartee dadkan basaska wada ma shidaalkii iyo tagaasida wada waxa weeyaan shidaalkii ku iibs wax alla wuxuu yara soo gala shidaal bay ku iibsadaan wallahi inaanay reerarkoodii iyo qoysaskoodii inaanay awoodi karayn inay raashin iibiyaan wadankan arrimaha ka baahsan ee muhiimka ah waxa weeyaan waa la isku cadaabay aakhiro bal waxaan leenahay roob baan leenahay ilaahay noo keeno abaaraha naga baahsiyo haddana dulmiga ka socda iyo baahida ka socota idinka arkaya dadkii raashinkii bay laayiin biyalaan bay u dhimanayaan wax alla wax laga qabanayaan ma jirto waxaan runtii soo jeedinaynaa warniyo bal sicirkan shidaalku waxa weeyaan waa dhaqdhaqaaqa wadanka haddaan shidaalka sicirkiisa la jabin dee adeer maxay booyadu dadku qaadayaan maxaa dhakhtaradu masaakiinta ambulansyada lagu qaadaya maxaa wadanku ku kala shaqeynaya maxaa lagu gaarayaa goobihii baahidu ka jirnay biyalaantu ka jirtay biyahan lagu qodayo iyo waxaan lagu shaqeynayo soo shidaal uma baahna ilaan shidaal baynu isticmaalnaaye marka waxaa loo baahan yahay dawladdu inay u fiirsato inay dadkeeda u naxariisato waxaan ganacsatadan raashinka keena kuley war ilaahay ka baqdo oo dadkan masaakiinta u tudha oo raashinka bariiska iyo baastada iyo waxaad soo dejinaysaan sicirka jabiya barayskii baa cirka maray waxay ka oranayaan Dubai baa shirkadda Dubai meesha joogta dekada haysata nagu qaali garaysay sidee u dhici kartaa shirkad wadanka heshiis la gashay dawladda inay waxay doonto ku cashuuri karto wanaga arkay war gawaaridii qaaliya waxba dekada kale ma soo deegi karaysa wadanka hal isu naxariisto dawladda waxaan leenahay dadkiina u naxariista masaakiinta ah war ganacsatadana ilaahay ka baqdo dadka u naxariista oo raashinka sicirkiisa dejiya oo qaybiya oo sakada bixiya waxa weeyaan runtii wax laga qiiroodo weeyaan dadku meeshan way isku dulman yihiin waxaad arkaysaa boqolkiiba 99 dadka ku nool Soomaaliland waa dad danyar ah wallahi islaamaha khudradda iibinaya aroortii soo kalaha 10,000 oo shilin iyo 20,000 oo shilin bay kala tagaan meesha maxay 20,000 oo shilin u taraysaa maxay ku iibsan karayaan ilaahay ha laga baqdo sicir bararkan hal la jabiyo dawladda waxaan leenahay iyo Trafigura war sicirkan shidaalka aad ka dhigateen gabigeena in cid kaliya gaar maamulato barayska hal la jabiyo shirkadahan shidaalka Kenya sicirka jabiya oo dadkii noo naxariista baahi baa lagu jiraa abaara lagu jiraa
wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad waa tahay xildhibaan waqti waxaa jirtay dalkeennu uu hoos yaallayba oo waqtiyadii dagaaladaanu ka soo noqonoo kale ganacsatadu waxay ahaayeen lafdhabarta koowaad ee dalka iyadoo xaalada adag haddee lagu jiray wakhtigaasi iminkana dee dadkii dayartaha ee abaari saamaysay oo ay naftoodii sidoo kale weyla tacaalayaan in sixir bararka ay ganacsatadu haddana saa ugu dallacaan adigu fariinta tusaalayntaad u dirtaa maxay tahay ganacsatada waxaan leeyahay maalku wuxuu ku kordhaa qofku inuu bini aadamku markuu isu naxariisto oo ay sakada ka bixiyaan ay dadka u naxariistaan qofka bini aadamka aan u naxariisan dadka ee dhiig miirato noqda ee masaakiinta maalin walba wax ku kordhiya aan waxba siin ilaahay aakhirana ma saamaxayo waxa weeyaan waxaan idinkula talinayaa ganacsatada waddanka risqigiina barakada ha yeesho dadka u naxariista waa la isu naxariisan jiray waddanka wuxuu ku soo caalmaalay naxariis marka waxaan leeyahay war sicirka jabiya dadka masaakiinta waxba haysan siiya kaan awoodi karena wax idinka iibsanaya amaahda aad ku leedihiin amaahda ha weydiinina ilaa inta abaarahan laga baxayo sicirkana jabiya haddii la haydhaa intaasaan idin farayaa haddaad tihiin ganacsatada waddanka joogta shirkadahana waxaan leeyahay shidaalka waddankan sicirka jabiya dadka gaadiidleyda basaska yararooda dhaweeyaasha iyo booyadaha iyo waxaan leeyahay war arrintan idinkuna ka hadla haddii la haydho haddii wax laga qaban karo ka mudaaharaad ka sameeya oo diida oo dowladda la hadla annaguna haddaan golihii nahay oo matalayna waan sheegaynaa dowladdana baaq baan u diraynaa 10 jeer baan baaq u dirnay in sicirka laydinka jabiya haddii la haydhaa aad iyo aad baad mahadsantihiin aad iyo aad baad wasaabi cabdi gole telefishinka qaranka Hargeysa